waxaan uga war helnay walaalay aniga xanuunsan mudday sanad iyo xogaada xamar ku maqnayd dabeeto aniga xanuunsaday oo qaliin iyo wax lagu sameynayay dabeedna imika 2 wiil ka hor bay Hargeysa timi imaatinkii Hargeysa markaa hore waxba looma diranin way noqonaysay maalintii sabti maanta waxa weeyaan bay ahayd marmaynaya isniin sabti dhaweysay ayay dhoofaysay dabeetana madaarka Hargeysa lagu qabtay waa gartay ma la socoteen waa aniga ayaa markaa Soma ayaa laga soo diray madaarka waxa inantu way xiran tahay waan u tagay madaarkii baan qabtay la ima ogolaanin inaan madaarka ugu galo ninkii askariga ahaayo ila soo hadlay baa markaa shandadihii soo dhiibay xagee la geenayaa baan ku yiri wuxuu yiri waxa la geenayaa sirdoonka madaxtooyada sirdoonka gobolka marka sirdoonka gobolkan kaga daba tagay aniga iyo odayaal oqaaliye saraakiil aan maarif nahay waa nala ogolaaday markaa maalnimadii waa u tagnay galownimadii hooyadeed baa u tagtay oo waa u soo diideen casarkii aniga haddana habeenkii iyo nooliyo hooyadeed raacay waa naloo diiday laakiin subaxnimadii haddana oo shalay ahayd waa nala ogolaaday inaan u tagno akhiiran waxa loo soo bedelay markaa nalagu yiri waxa loo bedelayaa si xafiiska si la kala xiriira CID baa markaa la keenay baa la yiri CID waa laga soo bedelay haddana saldhiga Hargeysa ay ku xiran tahay dhexe maanta la yiri maxkamad baa la keenayaa marka maxkamadii maanta lama keenin ay ku noqotayba marka berri haddana nagu yiraahdeen waa la keenayaa marka waxay noqon doonaan mooyi caawa ku saddexdeen bay xiran tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa sababta ma la idin kala hadlay loo xiray Nicimo Qorane iyo ujeedada ka dambaysa xarigeeda markay soo yaraan waxay leeyihiin markii la wareysanayay qoladan dambiilayaashu markay baarayaan qofka soo xiran waa la baaraayo wareysi baa laga yeeshaa marka aniga waxa igu maqala waxay yiraahdeen Somaliland yaa diidan tahay oo ka soo horjeedaa Soomaali weyna waad aaminsan tahay baraha bulshadana waxa ku qortay bay yiraahdeen intaas anaga war naga soo gaaray waa gartay marka xilli maxkamad la keenayo ama waxa laga yeelayo xaalkeeda cid idin kala hadashay ma jirtaa saraakiisha kuwaad la xiriirteen ama u tagteenba waxay yiraahdeen markii horena maanta waan ku horeysay maanta ay idin la keenay si noo sheegeen maantana way baaqatay berri weyn leeyahay waa la keenayaa berrina inay deeq noqonayeen inay baaqan doonto war kama hayno waa gartay sidaad u aragtaa marka gabadhaada xariga la xiray adiga abwaan Qorane colaad wallahi waan ugu dib baan u arkayaa waxaan u arkayaa maaragtay qofka fikirkiisa wixii qofku dambiye kale uu galo waa lagu maxkamadeyn karaa waana lagu xiri karaa laakiin fikir kaliya haday tahay waxaan u arkay inuu xadgudub yahay waa gartay marka taas laga soo tago intii ay joogtay Muqdisho wax Somaliland ka dhana miyay sameysay marka laga soo tago in sidaan maqlay qoraa ay ahayd dhowr jeer ay ka qayb gashay bandhig buugaagiye iyo arrimaha bulshada wax kale oo la isdhihi kara maanta waa lagu xiro ogtiin ma jirtaan intaas baan ogahay wax kale oo aan ogahay ma jiro wax kale oo aan ka maqlay ma jiro intaa waxaan ahayn kama maqal gabayar iyo Soomaaliya ku amaanaysay calankii Soomaaliya iyo inaha waan maqlaayay aniga laakiin halkan aan wax ugu baxay halkan wax dhimaal geysanaya aanu kama maqal marka labadii waalid ee dhalay maadaama aad tihiin ehelkii qaraabadii dabcan walaalihii kulli way joogaan meesha maxaad qorsheysateen inaad maamulka ula tagtaan ama xataa aad kala hadashaan saraakiisha ciidamada ee heesto ama eedeynaya Nimco wallahi walaalay waxa weeyaan horta deegantii horta dawlad baa haysata annaguna ehelkeedii baanu nahay xarigeeduna dhib badan buu nagu hayaa oo damaq badan buu nagu hayaa weliba aniga waxaan xanuunsanayo hooyadeeda xanuunsanaysa iyo dadka wax badan waan haystaan marka anigu inaanu iyaga ka warsugno mooyaane anagu hadda wax kale aanu samayn karaa ma jiro waa gartay ma jirtaa cuqaal dhaqan iyo nabadoono iyo inay arrinta ku jiraan haatan sida aan maqlayno aniga nin caaqil ah oo beeshan qanaskan ka soo jeeda caaqil u ah hawsha wuu yiri jiray ilaa shalayto laakiin cid staff badan oo miisaan loo kale hawsha la gashay ma jirin qoliyo saraakiilna maalintii hore qaar baa raacay laakiin mar dambe ma aan arkin anaguna culays badan iska maan soo saarno horta maxkamadan ay sheegayaan bal waxay tiraahdaa aragteen baan waa tabaqaaga ugu dambeeya maxaad u soo jeedinaysaa maamulka Somaliland maamulka Soomaaliya waxaan soo jeedinayaa waxa weeyaan inantu waa inay oo maaragtay waa habluhu waa caar dumarka si gaaran loo ixtiraamo weliba ay waajib leeyahay
maamulka waxaan usoo jeedinayaa ka codsanayaa dee inay naxariis muujiyaan dee waaweyn hablaha si gaara weyba loosi naxariisto dee haddii aan dunuub weyn oo culusina oo anigu hayna ma ay jirto laakiin kolleyba waxaan leeyahay cadaaladda iyo